taliska Mareykanka qaybta Afrika ayaa waxa uu dalbanaya in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday deegaanka Bariire. Wariyaha Cabduqaadir Umar Cabdulle Fiidka ayaa warbixintaasi inoo faafahinaya. taliyaha ciidamada qaybta taliska Afrika ee Mareykanka ayaa waxa uu amray in baaritaano hor leh lagu sameeyo weerarkii Bariire si loo xaqiijiyo in dad rayid ah ay kamid ahaayeen dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka Bariire bishii Agoosto ee sanadkan. Afhayeen u hadlay ciidamada qaybta taliska Afrika oo lagu magacaabo Colonel Mike Childe ayaa waxa uu sheegay in General Thomas uu weydiistay in baaritaano dheeri ah lagu sameeyo weerarkii Bariire ka dhacay oo ciidamada Soomaaliyeed oo taageero ka helayay ciidamada Mareykanka ay fuliyeen. Go'aankan ayaa wuxuu imaanayaa 2 toddobaad kadib markii ciidamada taliska qaybta Afrika ay soo saareen warbixin lagu beeninayo in dad rayid ah lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka Bariire bishii Agoosto. Afhayeenka ciidamada ayaa waxa uu intaasi ku daray in Colonel Thomas uu codsaday in baaritaano dheeri ah lagu sameeyo warbixintii la soo daabacay dhawaan maadaama weli dad aan dambi lahayn oo rayid ah ay ku adkeysanayaan in dadka weerarka lagu dilay ay ku jireen dad rayid ah oo ay caruuri u badan yihiin. Dowladda Mareykanka ayaa horaantii sanadkan ogolaatay in howlgallo dheeraad ah ay ciidamada Mareykanka ka sameeyaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay waaxda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka in dhawaan aqalka cad ee Mareykanka ay ka codsatay in 2 sano oo dheeraad ah loogu daro howlgalka uu hormuudka ka yahay Mareykanka ka oo lagu la dagaalamayo waxay ugu yeereen argagixisada.